السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي جميل كستا جوكتين سو دوادا channel كيني حارنت عن تدعى عافمادك ولاشن شكري آدم بولي أصحاب تقيمها بدن إن هودنا لصوت سو دوادا إن دحيا مانتا وحني هايا توبيك آدو مهم ومحال دها إن ووح فلاور لها أما fruits أو هيبسكا لها هيبسكا بدل وحلقة هلا إن عجمي كانكا إن عسو أيو كصوب حيا لهاي كل سوماليين وكاسيسا faa'iidooyinka uu leeyahay oo qofka bini'aadamka jirkiisa ku leeyahay halka inuu ku soo daayo oo oga Soomaalideena waxyaalo badan oo isticmaalaan laakiin waxa laga yaabaa dad badan oo kasin inay jirin hibiska wuxuu u fiican yahay ayaa la dhahay difaaca jirka ayuu kor u qaadaa ayaa la dhahay wuxuu kaloo hagaajiyaa oo prevent gareeya ama ka hortaga ayaa la dhahay qofka jirkiisa markay ku dhacaan la dhahay oo damage soo gaaro wuxuu kaloo u fiican yahay ayaa la dhahay riskiga ayuu hoos u dejiyaa oo qofka marka waxa la dhahay caafimaadkiisa oo ku imaadaan xanuuno badan sida xanuunada ka mid ah wadna xanuunka ama waxa kale waxa la dhahaa sokorta kansarka cunto hadii oo markaas uu waxa la dhahay uu qofka jirkiisa uu nadiif yahay nadiif ayuu ka dhigaa uu dhaqaa ayaa la dhahay faa'iidooyin badan ayuu leeyahay hibiska marka waan sida horta faa'iidooyinku leeyahay ka hadlaynaa hadhow waxaan u sii guud galiganaa sida loo hagaajiyo ama sidee dad shaaxbi ka sameystaan qaarna juice ay ka sameystaan waxa kale la dagaaltama asxaabta qaaliga ah hargabka iyo wareegtada cunto maxaa la xanuunada iska wareega waxa kale u fiican yahay ayaa la hoos u dhigaa blood pressure-ka waa sida wada ka seen waxa waaye dhiig karka ayuu hoos u dhigaa waxa kale u fiican yahay asxaabta qaaliga ah qofka waxa la dhahay buuran hilibka ayuu karidaa waxa kale u fiican yahay asxaabta qaaliga faa'iidooyinka kale leeyahay waxa waaye qofka caloosha markay taagan tahay waxa la dhahay uu fududeeyaa dhinaca musqusha oo qofka musqusha caadi ayuu dhigaa waxa kale uu wanaagsan yahay faa'iidooyinka leeyahay waxa asxaabta qaaliga cholesterol-ka hadii qofka cholesterol leeyahay cholesterol xun hoos ayuu dhigaa low blood pressure maxaa la dhahaa cholesterol-ka qofka cholesterol-kiisa ku badan yahay dad badan ayaa cholesterol leh caloosha qofka calooshiisa ay weyn yahay cholesterol lagama waayo soo marka faa'iidooyinkiisa aad ayuu badan yahay halkan lagu soo koobi karo wuxuu kale u fiican yahay asxaabta waxa la dhahaa beerka liverka ayuu dhaqaa saa hore ugu soo hadalna immune systemka difaaca jirka hadduu marba cuntadaas ama waxa la dhahaa ubaxan oo hibiska la dhahayo oo difaacaga kor u qaadayo oo xanuuno badan uu ka hor imaanayo oo la dagaaltamayo sida kansarka oo kale dhiig karka waxyaalahaas oo dhan waa wax aad u fiican waaye soo marka waxa rabaa inaan la wadaago asxaabta sida loo hagaajiyo dadka rabaan inay saacateeyaan iyagana oo ma ogay dad badan ayaa rabaan inay saacateeyaan uu u fiican yahay waxa kale rabaa inaan ku daro hadaa hibiska maalin kasta ma cabi karaa maalin kasta waa cabi kartaa wax dhibaato kaaga imaanaysa ma laha dadka kale way cabaan oo maxaa la dhahaa hindida iyo dadkaas u badan caafimaad ahaanta ah shaaxna waa lagu cabaa aniga juice ayaan ka dhiganayaa marka waxaan rabaa in la wadaago saa juice uga dhigin kartid si fiican ha loo fiiriyo soo hadda hibiska waa flowerkan waa geedkan geedkan oo Ilaahay soo bixi waaye oo ujeedin uu eegyahay soo marka waxa sameynaysaa waa dhaqaysaa marka hore hadda ma dhaqna marka dhaqdid hadhow sida caadi biyaha ka miiranaysaa biyahaysa vitamin C ga ayaa ku badan energy badan ayaa ka helaysaa awood badan ayaa ka helaysaa hadaa qof tahay oo markasta awoodiis ku yar tahay oo markasta dareemayo daciifnimo iyo waa juiceska laga helo awoodda iyo energy-ga badan soo marka waa dhaqaaya hadda inaan dhaqaa rabaa qaaliya soo soo qaadanaysaa marka soo qaadaysid waxa ku shubanaysaa waxa la dhahaa halkaan ugu shubanaya xarba inuu hadhow budi oo waxa la dhahaa si fiican u dhaqaysaa wax la soo dhaqaa asxaabta qaaliga ah soo dhaqaynaa markaan dhaqno asxaabta marka waa dhaqaynaa oo ka soo ujeedin marka waxa ka soo baxay ujeedin guriga ka soo baxay caadi u dhaqay si fiican iska dhaqaysaa caadi inta dhaqdid halkan shaqo waxaan u shubayay in xaraba oo waxa la dhahaa hadhow sidoo biyihii wasaqda ay ka baxaan isagana uu nadiif u noqdo soo daarteena zaid u dhaqdo dhaq kartaa kumbada sidaan ugu shubaysaa oo dhaqda caadi oo iska joojinaysaa ka joojisay isaga soo qaadanaysaa marka soo qaadatid waxa saxankaaga caadiga haday iyo kala aan ku shubanaynaa waa kaas isagoo la dhaqay oo nadiif noqday soo hadda waxa sameynaynaa maxaa la dhahaa biyahaaga nadiifka soo qaadanay caadi ugu shubaysaa marka asxaabtu waa dhaqatay biyahaaga soo diyaarsanaysaa biyaha waan jaagan ku shubanaysaa jaaga markaan ku shubatay marka
hebiska qaadanaysaa ama fruitkan oo saas u eeg guduud mise pink inaga soo sheegi doontiin waxaa laga yaabaa in ani kalarka ku xumeeyo dhow kalarka qaladaad sameeyo markaan soo dhaqnay soo marka waxaa ku shubanaysaa biyahaaga ku shubanaysaa markaas caadi waa walaaqanaysaa waa cabaysaa soo kan meeshaada ku shubanaysaa taas noqonaa markii lagu shubayso qodna marka dhow ku shubaysaa kan oo ku shubaynaa caadi biyo hore xaqaarana ugu shubay hadda ku wada shubanaysaa marka ku wada shubtid hadda barf haysid barfkaaga ku shubanaysaa soo hore u soo hadal marka vitamin C ga awood badan ayuu siinayaa waxa soo faa'iido ayuu leeyahay kansarka ayuu ka hortagaa haddii hargab qabtid cabi kartaa wuu fiican yahay hargabka hadda qabtid calool weyn cholesterol iyo wadna xanuunka uu ka hortagaa haddii xitaa prevention waxa soo dhan oo qof aad tahay sokor qaba sokortana uu fiican yahay blood pressure ka dhiig karta dadka qabo waxana waa wax fruits waxa way oo natural ah way waxa soo faa'iido ayuu leeyahay soo meelaha oo lagu gadaa dadka Nairobi degan maamooyinka oo mushaariyaasha ayaa gadaan meesha dhinacaas oo alxaq way ka saareen dadka soo wasaana u samaysanaysaa barfkaaga ku shubanaysaa juice-kaaga fridge-kaaga gashanaysaa waqtiga aad soo baxsanaysaa biyo daartada ku badsanaysaa because baalku badan yahay ilaa 5 koob camal biyo way deeqayaan soo marka aad iyo aad ayaa looga hadlay faa'iidooyinkiisa waxaan ilaahay lagu boorin lahaa caba asxaabta qaaliga isku diyaar waa kan marka u fiiriya si fiican fiiriya saas noqday glasskaaga soo qaadanaysaa daartada ku shubanaysaa ani kulli xasuugaya markuu noqdo baraf ee noqdo oo qaboobo kuleelaya ama aan iska jiro marka asxaabta qaaliga bakhiilin ha noqonina waxa soo faa'iideen ayuu leeyahay caafimaadkiina la tacaala hadda wax ka faa'iideen ilaa sheegareeya dadka la sheegareeya sida dadyaalo badan waxa jiro sokor qaba oo qaba dhiig kar qaba cholesterol qaba qof waxa jiro dadyaalo badan oo rabo hilibka in iska ridanaa jiro qad waxa jiraan sida hooyinka uurka leh ama dad oo daciif ah oo wadna xanuunaya oo rabo inay energy helaan waxyaalahaas energy ayaa ka helaysaa dhakhtarka kala tashan dhilada uur leedahay uma booriyeen because wax kasta oo hooyada uurka ma la ogaan karo xil leedahay sababtaas uga sii guud maxay asxaabta qaaliga dax ka faa'iideen ha noqonina bakhiilin sheekaray ayaan dhihi lahaa ama qoobkan ku shuwayo ama qoobkan ku shuwa soo aragtiin dadka iska jecelina arkaan marka uu suu noqdo wuxuu noqday soo marka intaan qasay bixin ayna tusaya soo hadhow sida u aragtiin muxuu uga baahnid inaad just biyo ku shubtid u baahan tahay afkiisa gelshid dad liin ku darsan way jiraan dadka isku mid maaha soo aagaga waxaaga soo qaadanay koobkaaga ama ku kalmood ma leesaysaa bas soo baxaya asxaabta qaaliga inay waa maxsan soo halkaas ay niga sii guud baxaya waxaan dhahaaya meesha nagala socoteen waa xarunta cuntada caafimaadka waynu niiso deena walaashin shukri aadan bule السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك سجوبتين أصحابنا.